maanta waxaan la kulmay madaxa saxaafadda ururka UPD ee qaaradda Yurub Mataan Xuseen Kulane Mataan Raage ee ku sugan magaalada Kassel ee gobolka Haysan ee dalka Jarmalka sidaan la soconna madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la filayaa inuu soo doorto ra'iisul wasaare waxaan weydiinay shacabka madaxa saxaafadda ururka UPD ka waran ra'iisul wasaare noocee ah ayaad kula talin lahayd madaxweynaha waa mahadsantahay oo salaam adiga iyo kaamiramanka hadaba salaam kadib madaxweynaha waxaan kula talin lahaa ra'iisul wasaare aqoon-yahana oo la shaqeey kara lana jaan qaadi kara dawladda annaha ishaga madaxweynuhu hoggaanka u yahay asiga oo ku xiranaya aqoontiisa iyo inta uu macnaha ishaga qofkaas sidii ay wada shaqeey karaan ilaahayna waxaan ka baryaynaa in madaxweynuhu ra'iisul wasaaraha uu soo magacaabo ay waqtiga wada dhamaystaan oo maxaan ku yiraahdaa ishaga dalka horumar iyo nabad gaarsiiyaan marka taladeedu waxay tahay madaxweynuhu aqoon-yahan waaye oday Soomaaliyeed waaye waddanka hore madaxweyne ugu soo noqday 5 sano waddanka wuxuu ka hortaagnaa in maxaan ku yiraahdaa ishaga maamulka litalisa uu ka hirgalo ka hortaagnaa marka intaas waa aragnimo iyo khibrad uu leeyahay marka anagu waxaan leenahay inaan u duceyno waxaan leenahay ilaahay usha dhexda ku qabto taladana ku toosiyo wadana madaxweyne dalkan iyo dadkan Soomaaliyeedna ra'iisul wasaarihii dhibaatada ka saar lahayn aad u doorto aad iyo aad aan ugu faraxsanahay una sugayna una bogaadinayna marka waa ka sidaan la soconna madaxweyne walba oo la soo doorto ra'iisul wasaaraha uu xusho badana khilaaf ayaa dhaxgala khilaafkaasi maxaa sababa oo mar walba madaxweynayaal waxa arkaysa laba ra'iisul wasaare saddex ra'iisul wasaare ay soo maraan xilligiis waa mahadsantahay waa su'aal aad iyo aad muhiim ah horta arintaas waxaan isleeyahay qabyaatirka dastuurka qayb uu ka yahay wali Soomaaliduna uma bislaan umana nuglaanin dawladnimada saan isleeyahay wali wax yar oo waxa jira ceeriina marka khilaafna waa imaan kara laakiin waxaan aaminsanahay in fikir kala duwanaansho hadduu yimaado wada hadal lagu xalliyo oo khilaaf iska qabsi dambe uusan imaanin mana rajaynayno madaxweynaha hadeertaan in maxaan ku yiraahdaa ra'iisul wasaare iskhilaafi doonaan uu keeni doono marka ayadana waa arrin dhiman oo u joognaa marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dalkan iyo dadkan inuu horumar gaaro oo nabadna helo xasilooni helo wadamada asaagiisana la jaan qaado 30 sano adduunyada ka harnay marka annagoo waliba saas dagaal la sokeeyay abaar iyo dhibaato ay jiraan haddana waxyaabaha badan oo dadka Soomaaliyeed kartidooda iyo maxaan ku yiraahdaa aqoontooda ay ku soo saarteen aan kaga hormarsanahay sida telecommunication-ka iyo maxaan ku yiraahdaa ganacsiga marka insha Allah ta'ala khilaaf ma imaan doono niyada qeyr loo sheego okay ugu dambeyntii maxaa shacabka Soomaaliyeed kula talin lahayd in dawladda iyo ra'iisul wasaaraha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha soo socdo shacabka Soomaaliyeed kula talin lahayaa in maxaan ku yiraahdaa sheega dawladda ay la shaqeeyaan dawladda sideedaba dawladdu waa shacabka tii oo markaan ku yiraahdo dawladdu waa maamulkii iyo waxqabadkii waa dimihi adeegay waa dadkii shaqaalihi shaqeynay laakiin dawladnimada asalkeedu waa shacabka Soomaaliyeed waxaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanayaa in ay madaxda la shaqeeyaan dawladda la shaqeeyaan waxa ammaanka waa la wada leeyahay ammaanka laga wada shaqeeyo dawladnimada waa la wada leeyahay dawladnimada laga wada shaqeeyo maxaan ku yiraahdaa ishaga nin walbana meeshii uu joogo deegaankiisa uu hormariyo marka shacabka Soomaaliyeed shacab aad iyo aad u dulqaad badan aad u sabar badan aad u wanaag badan ilaahay waxaan ka baryayaa colaadan iyo abaartan iyo dhibaatadan ragaayeen ilaahay naga dulqaado shacabka Soomaaliyeed qulubtooda ilaahay maxaan ku yiraahdaa isu furo oo maxaan ku yiraahdaa bogooda burcad isu mariyo heshiis waaran oo dhex dhigo aad iyo aad ku salaamaya aad iyo aad mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa madaxa saxaafadda ururka UPD ee qaaradda Yurub waa ururka xisbiga UDP ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Mataan Xuseen Kulane oo ku magac dheer Mataan Raage oo ku sugan magaalada Kassel ee Haysan ee gobolka
gobolka Haysan ee dalka Jarmalka waa anigoo ah wariga Cabdinaasir Maxamuud Xaaji Axmed Cabdinaasir Qujuufa